xogayaha maaliyadda ee xisbiga ucid ee dalka UK Xamse Jaamac Iimaan oo khadka telefoonka ugu waramay telefishinka Ariel ayaa waxa uu ka hadlay muddo-xileedka gabagabada ku dhow ee madaxweyne Biixi waxaanu isbabar dhigay xukuumadihii kala dambeeyay ee kulmiye madaxweyne Biixi walaal waxa horto sanadkii afraad baa imika u dhamaaday walaal la socoto 2017 bishii 11 ayaa la walaal la magacaabay dawladin Muuse Biixi waxa ka horisay dawlad kale oo isla xisbiga kulmiye oo Siiraayo oo 7 sano soo maamulayay walaal Siiraayo waxa dawladii Siiraayo walaal waxay kaga duwan tahay dawladda Muuse Biixi Cabdi dawladii Siiraayo sanadkii ugu horeysay waxa la socotay wixii mashaariic ka bilaabmay hadii noqoto wasaaradda la dhiso hadii noqoto wadooyin hadii noqoto magaranaysa mashaariic dibadaha laga keeno oo ilaa imika magaranaysa wadankeena sharafta iyo qiimaha uu yeelay aad magaranaysa adduunka oo dhan inaga sheekeeyo walaal horta labada dawladood lisman barbar dhigi karayo magaranaysa isku mana dhawacir iyo dhul inta isku jiraan walaal isku jiraan waxa weeyaan wadooyinka ay magaranaysa madaxweyne muxuu ahaayay Siiraayo uu magaranaysa u babacdhigay waxa kamid ah wadadii Burco iyo Ceeri Gaabo oo dawladaha qaar iyo hay'adaha qaar aad inoola yaabeen wadadaasi culeyskeeda haddana uu xoog saaray sidoo uga mar dhalin lahaa every few months na adogeed halkii maraysa in magaranaysa dadka la socodsiin jiray oo loo soo bandhigi jiray walaal waxa kale oo socday wadooyin kale oo loo kala oo dadka community-ga magaranaysa deegaanadu wadeen sida wadada cad ee magaranaysa Salaxley oo iyagu 5% dadka deegaanka ay wadeen inta kalena dawladda Siiraayo walaal ka kaabi jirtay dawladda wada kale waxa jirtay idana baligubadlaha oo madaxweyne Siiraayo la bilaabay oo meel fiican iyadana mareysay hase ahaatee nasiib xumo walaal markii dawladdan Muuse Biixi wadanka la wareegtay labada wadamo u istaageen iyagoo kolba deegaanku intay bilaaban haddana ka istaagto walaal saal la wada socoto in mashaariicahan dibadaha inooga yimid Siiraayo soo dhameeyay walaal sidii dekada berbera oo kale in berbera corridor oo daahir yaal markii dawladdiisii bilaabantay hirgelinteedana ay lahayd dawladdan Maxamuud Siiraayo airportkii berbero isaguna dhamaanaya dhinaca kale xogaya Xamse waxa uu sheegay in xukuumadda talada haysa ay hal abuurtay hal mashruuc magaranaysa si caadifaysanna aanan uga hadlin oo magaranaysa anigu walaal raygayga ka dhiibto hal mashruuc baa ka fulay walaal dawladdan Muuse Biixi halka mashruuc oo ah mashruucii shaqo qaran ee ardayda iyo dhalinyarta lagu hagayay taana walaal waa shaqadiisii geesta kale xogayuhu waxa uu dhaliilay shaqada wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland la wada socoto wasaaradda arrimaha dibadda sanad bay bilaaway Siirahayd 4 sanadood ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dalka hayna walaal wasaaraddaasi way fadhiid baa haysaa la wada socoto walaal geeska Afrika waxa ka socda xaalado aan la malaysan karin koowaha ka ahaat xaaladan Ethiopia 110 milyan baa walaal aynu jaar lanahay haddii isku dhacaan isburburiyaan ay burburto dawladdaasi wax istiraatiijiyada amba balaan amba qorshe ka leeyahay ma jirto haddii nagu soo qaxaan 110 milyan waxaan ka baqanayaa in meel aynu marnayna la waayi doono xogayaha ayaa soo qaaday biyo la'aanta ka jirta dalka socoto magaalada Hargeysa ay half population Soomaaliland ay ku nool yihiin waxa ka bilaabmay mashruuc biyo gelina biyo balaadhina oo dawladii Maxamuud Siiraayo ay bilowday walaal saad la wada socoto walaalo mashruucaasi si fiican oo qurux badan buu socday imika saynu arkayna mashruucii walaal dadkiina rajo xumadii ay qabeen kontankii sanadood wax iska bedelay walaal ma jirto ilaa imika rajo xumadii bay qabaan inay biyaha heli doonaan iyo in kale ugu dambeyn waxa uu sheegay in mas'uuliyiinta hogaaminaysa xisbiyada kale ay yihiin siyaasiyiin la soo tijaabiyay waxaanu shacabka ugu baaqay in jaaniska qura ay haystaan uu yahay in ay doorkan xisbiga u tijaabiyaan walaal anigu saan qabo maanta shacabka reer Soomaaliland hal mid baa u banaan halka mid u banaan waxa weeyaan maadaama uu Muuse Biixi Cabdi markii labaad shacabku ay tijaabiyeen cirana markii labaad imku dooni in la tijaabiyo horena loo soo tijaabiyay nimanka kale ee madaxweynenimada doonaya hanka madaxweynenimo watana walaal saal wada socoto waa wasiiradii ka soo wada shaqeeyay dawladihii kala dambeeyay badankoodina way la dhameystaan walaal hal jaanis baa bulshada reer Somaliland u banaan halka jaanisna walaal waa xisbiga ucid saal wada socotaan dhowr iyo 30 sanadood u dambeeyayba gudoomiyaha hagayay ee hogaaminayay Engineer Faisal Ali Waraabe maruu nabadeyntii wadanka ka shaqeynayay maruu dhismaha wadanka ka shaqeynayay iyo maruu ilaalinayay qadiyadda Jamhuuriyadda Somaliland dhowr iyo 30 sanadoodba magaranaysa si iskiisa uga shaqeynayay anigu waxaan qabaa halka jaanis ee maanta reer Somaliland u banaan wadankan xaaladan ku jirana ka saari karay walaal waxaan qabaa inuu xisbiga u cid yahay Engineer Faisal Ali Waraabe Maxamed Midh Qorsame Ariel TV Hargeysa